noocyada murashaxiinta marka la eego saddex qaybood ayay u kala gidisay qaarna jeebkooda ayay rabaan inay isku soo saaraan qaarna waa kuwa iska sacbatumayo oo malxiis u noqon doona rag kale oo saaxiibadooda isa soo taagay balse qaar ayaa iyaguna calaamadaysan oo midkood laga yaabay inuu ku guuleysto isla markaana ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxaa ka cusub maxaa xiiso leh xalka Soomaaliya waqtigan marka la eego halkani waa Shacabka TV daawadayaal oo idila socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda guud ee wadanka qodobada iyo akhbaraadka xiisaha badan iyo macluumaadkan dul istaagi doona waxa kamida waa imisa tirada guud ee xubnaha murashaxiinta ee xilka madaxtinimada ee Soomaaliya u taagan meeqa ayaysa u kala qaybsamaan qaabab ceenkee ah ayaysa doorashada ku kala galayaan kuweeba aragtidooda iyo go'aanadoodu dhab yihiin kuwaysa ayaa been guur iyo sidoo kale propaganda meesha u jooga inay u sacbatumaan qaar kale murashaxiinta si ay berito u helaan xilal wasiire iyo waxyaabo la mid ah intaba waxaad kaga boga doontaan barnaamijkeenan gaarka oo intiisa badan amuraha Soomaaliya aan diiradda ku saareyno waxyaabaha kale xiisaha leh oo aan markaasi eegi doono waxa kamid ah dunida gaar ahaan dawladaha sida weyn u taageeraya Soomaaliya shantii sano ee barkay ugu dambeysay oo ay Soomaaliya kuba camuujisay oo imanka indhaha ku eegaya bal siyaasiyiinta soo bixi doonta iyo haddii ay sii wadi karaan kuna aamini karaan deeqaha dhaqaale iyo mashaariicda kale oo ay Soomaaliya waqti xaadirkan ku caabiyaan waxaan idinkaga haynaa iyaduna xog arinkani ku saabsan ninkii baahna ahaa ee Mooriyaanta iyo sidoo kale qablayaasha la shaqeynayna imanka wuxuu ku doodayaa haddii la fasaxayo kuraasi lagu doortay Ceelwaq aniguna waxaan isbaarada ka qaadaya oo aan fasaxaya kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir heshiis uu soo bandhigay baahane ayaan idin haynaa balse loo diiday heshiiskiisa inuu dhaqan galo nabad iyo nolol oo ku gacan saartay dalabka iyo soo jeedinta cusub ee ra'iisul wasaare baahane qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin soo gudbin doonaa intaan wararka iyaga ku guda jirnay iyo barnaamijkeenan gaarka oo aan umuraha Soomaaliya ku dul istaagayno meel kasta oo dunida ka joogtaan kulanti habboon ayaanu dileenahay halkani waa Shacabka TV oo idila socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay xaalka guud ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale waxaad ra'yigiina ku soo cabiri doontaan oo ay doodayadu ku saabsan tahay ninkii baahna ahaa shuruud adag ayuu ku xiray kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir shuruudaasi oo ah bal in isaguna loo sii daayo kuraasti Ceelwaq ee gacan kurimiska ah ee Axmed Madoobe iyo Kenya soo saarteen ee lagu doortay Ceelwaq in oranine qayb ka mid ah gudaha dalka Kenya asaate waa laga diiday go'aanka waxa loo sheegay inaanay masiir ummadda Soomaaliyeed leeyihiin aanay gorgortan iyo sidoo kale beecmashturba noqon karin isla markaana warkiisaas uu la laabto kadib markii erga uu dirsaday baahane ay tageen xafiiska madaxweynaha go'aankaasi didmada ah ee la dhacay kooxda baahane sidaad u aragtaan daawadayaal ra'yigiina ugu soo gudbiyay qaybta hoose ee commentiga iyo faalooyinka waxaad kaloo ra'yigiina ku soo cabiri kartaan xeynta faraha badan ee murashaxiinta xilka madaxtinimada ee Soomaaliya muwaadin keebad is leedahay hal lagu aamino mar kale masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo xoolaha mahantida ay leeyihiin ummaddan Soomaaliyeed ee dib u soo kabashada ku jirta wixii ra'yigeedan ugu soo gudbi qaybta afkaarta dadweynaha channelka subscribe adina adoo muuqaalka like saara si faafiya wararka gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed si ay markaasi uga qayb noqdaan daawadayaasha ku xiran wararka muuqaalka like saara si cadowga ummadda Soomaaliyeed ay kaga naxaan wayna sidaas waxaanu guda galeynaa tafaasiisha amuurtii bishaaro dhamaan ummadda Soomaaliyeed waxa loogu bishaareynaya in macadka barashada Qur'aanka Kariimka iyo xafdintiisa ee Nuurul Furqaan idin soo kordhiyay qaab casri ah oo online ah laguna baranayo xafdinta Qur'aanka Kariimka qolkii eebe haddaba haddii aad doonayso inaad ka mid noqoto ardayda macadka waxaad kala xiriiri kartaa nambarka shaashada wax la barto oo lagu amal falo waxa ugu wanaagsan Qur'aanka Kariimka qolkii eebe mahadsanidin marka hore waxaan ku bilaabeena caalamka maanta waxay indhaha ku hayaan siyaasiyiinta la dooran doona ee Soomaaliya iyo cidda hoggaanka dalka hoggaamin karta si markaasi ay u sii wadaan ama ay kaga fiirsadaan taageeradooda xagga dhaqaalaha iyo midda kale ee mashaariicda ah oo ay Soomaaliya markaa ku garab istaagaan shantii sano iyo barka ee la soo dhaafay dawladaha sida weyn indhaha ugu haya Soomaaliya ee dhaqaalaha ku bixinayay waxay markaa arkeen maamul wax lagu aamini karo oo uu majaraha u hayo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo keentay in dawladdu ay ku guuleysato bixinta shaqaalaha mushaarkooda iyo ciidanka xuquuqaadkooda iyo cid walba oo dawladda ka tirsan iyadoo sidoo kale miisaaniyadda lagu caabiyo dawlad goboleedyada iyo dhammaan gobolada dalka Soomaaliya
ila iyo Somaliland ay dawladdu si hufan u bixisay. intaas waxaa si dheer la dagaalanka musuqmaasuqa, nidaamka maamulka maaliyadda ay dawladdu wax badan ka qabatay iyo mashaariicaha loogu deeqay qaranka in si hufan oo daacadnimo leh loo maamulay, qasnada dawladdan laga ilaaliyay gacan badaxaysi iyo dhaqaale sharci darro ah in laga la baxo. lacagta canshuurta oo ay bixiyeen bulshada Soomaaliyeedna dib ayaa loogu celiyay oo wadooyinka iyo xarumaha dawladda iyo goobaha danta guud ayaa lagu dhisay. taasi waxay keentay in wax badan ay ka fahmaan bulshada Soomaaliyeed nidaamka dawliga iyo bixinta canshuuraadka oo faham qaldan ay ka haysteen shacabka Soomaaliyeed. muwaadin kasta oo Soomaaliyeed, midka wax fahansan iyo midka wax fahansanin, midka jaahilka iyo midka wax bartayba, maanta waxaa laga wada siman yahay dawladnimada in la ilaashado ama indhaha lagu wada hayo. la xisaabtan adag ayay bulshada Soomaaliyeed la soo baxeen. kooxdii Mooryaanta ahayd ee daaraha dhaadheer ka dhistay xoolaha ummadda ka macaashay ayaa iminka waxay ka naxsan yihiin bal albaabada cusub ee ku furmay oo ay nabad iyo nolol ku furtay kooxdaasi, si haddii xitaa midkood uu xilka qabto uu u wajaho la xisaabtan xagga bulshada ah. cid walba oo ku guuleysata hoggaanka ummadda Soomaaliyeed waxaa hortaala in ay si joogto ah u bixiso mushaaraadka oo ay ilaaliso ammaanada ummadan ay leeyihiin. howl aan sahlanin ayaa taala. macnaheed ma ahan haddii xitaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu meesha isaga baxo maanta cidda timaada waxa ay doonto inay sameyn karto ama dhaqankii hore ee tagay inay dib u soo celin karto. maxaa yeelay bulshada Soomaaliyeed maanta indhahoodu waa ay soo jeedaan, caalamkan indhahoodu waa ay soo jeedaan. taasina waxay keentay in maanta iska suuragali weydo cid walba iska socoto qarankan maanta inay soo haleesho. waxaynu iminka eegaynaa tirada murashaxiinta ee taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya isku soo taagay. inkastoo cadad ahaan ay sayireen balse 20 meeyo ayay gaarayaan. 20 meeydaasi 3 qaybood ayaan u kala qaadnay kadib markii daraasad aan ku sameynay. qaybta ugu horeysa waa qayb sacbatum meesha u joogta oo cidda ay u sacbatumayaan haddii xilka ay ku guuleysato ay ka helaan xilal sida wasiiro, safiiro iyo waxyaabo kale oo la mid ah iyo heshiis dhaqaale oo ay la galeen in jeebka loo buuxiyo. qaybtan aan ka hadlayno way si biimeeyeen oo iminka waxay siiraasadeen xilalka xildhibaano sida ninka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasame la yiraahdo ayaa ka mid ah. hankooda aad ayuu yar yahay. safkana waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ninka la yiraahdo Cabdikariin Xuseen Guuleed, ninka la yiraahdo Daahir Maxamuud Geele, ninka la yiraahdo Shariif Sakiin oo isagu kursiga xildhibaanba soo waayay. qaybta labaad oo iyagu rabaa inay dhaqaale isku soo saaraan waxaa ugu horeeya nin la yiraahdo Xasan Cali Kheyre. xasan cali kheyre ma lahan mabda siyaasadeed iyo geesinimo iyo karti, balse isagu wuxuu rabaa dhaqaale uu ka soo urursaday dalalka shisheeye iyo midii uu ka musuqmaasuqay xafiiskii ra'iisul wasaaraha ka ahaa waqtigii uu qaranka u shaqeynayay. lacagtaasi musuqmaasuq xoog leh uu ku sameeyay ayuu rabaa inuu doorashada ku galo. raggan xasan cali kheyre uu ka mid yahay waxa kale oo qayb ka ah xasan busto xasan garguurte oo imanka guriyihii uu ka iibsaday hantida qaranka maanta dib u iibinaya. qaybtan waxaa kale oo ku jira isaguna nin la yiraahdo Cabdulqaadir Cusable oo balse xildhibaan naf ka raadiyay balse haddana raba lacaga musuqmaasuq uu ku sameeyay in uu tartan doorasho ah ku galo. qaybta saddexaad markaan soo qabano waxaa ugu horeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Shariif Sheekh Axmed, Cali Maxamed Geedi iyo shakhsiyaad kale oo iyagu aanay aad u saameyn badneen balse qaybtan iyagu ku aragtida ah ama meelaha qaar iska shabahan. qaybtan aan ka hadlayno iyagu waxaa ka go'an han siyaasadeed in marka ay ku tartamaan mabda iyo qodobo cadcad. hadafkoodu ma ahan in kaliya dhaqaale isku soo saaraan balse waxay leeyihiin qarannimo iyo Soomaali in la isku wada ayaa naga go'an. qabyaalad iyo sidoo kale kooxaysi iyo qabiilnimana inaanay waxba soo kordhi karin ayaan dareensanahay. inkastoo ay haddana kala cadcad yihiin, murashaxa ugu horeeya wuxuu yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu mowqifkiisa uu cad yahay oo ku cadeeyay khudbadiisa ugu dambeysay in qabiil uu meel iska dhigay iyo qabyaalad isla markaana uu qaran ka doortay. khudbadaasi Jaale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ka jeediyay xuskii munaasabada 12 Abriil ee asaaska ciidamada xoogga dalka ee dhawaantan ka dhacday xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, halkaasi oo lagu soo bandhigay 300,000 oo kamid ah ciidanka xoogga dalka. Cali Maxamed Geedi ayaa isaguna sida oo kale fikirka aaminsan
shariif xasan waa sheekh axmed ayaa isaguna fikirka aaminsan madaxweynihii hore ee dowladii kumeel gaarka ee Soomaaliya balse shariifku marba isagu meel ayuu u weecanaya markay xaaladda ka wareerto dhanka qabyaaladda ayuu u weecanaya markii uu is arkana in xoogaa yar uu dhismaya wuxuu ummadda u sheegayaa wadaniyad iyo dastuur ba ilaalinaya waxyaabo kale la mid ah balse isagu astaan iyo sumad aan weligii ka dhacaynin ayaa saaran oo ah bixintii badda Soomaaliya iyo sida uu u fududeystay bal muwaadin adigu wixii fikraad qabto inagu soo hagaaji qaybta hoose ee faalooyinka warkiina intaas ayuu ka dhayahay waa inoo qaybaha kale nabadgelyo